Somaliland waxa bariga ka dhacaya ee gobolka ka dhacaya inaan ahayn waa aynaan ahayn laba reer oo isdileeya aan ahayn waa wax dabada leenaga soo tuuray waa wax la doonayay lagu banjariyo maxaan ku dhahay goorisu taageeni markaas yaa laga dhigin laba reer oo maxaan ku dhahay hadii la bedel leeyahay is haysta ama laba reer oo isdileeya laga dhigin waa arrin maxaan ku dhahay dugudaabiyo la doonayo in leenaga leexiyo dariiqii aynu haynay ee goorisu taagaha yaan loo qaadan arrinkaasi inuu yahay laba reer oo isdileeya waxaan doonayaa inaan u sheego yaan laynagu kala qaybin arrinka yaan laynagu kala markaas waxa aad iyo aad baan uga naxay ninka cadowga inoo soo raacay ee halkaa iga soo duulay in maanta looga mudaharaado maxaan ku dhahay bucayo iyo carigaabo aad iyo aad baan uga naxay waxay ii sheegaysaa dadkeenu dad badan inay yihiin warmoog ay yihiin arrinkaasi wuxuu naga imanayaa Soomaaliya ayuu naga imanayaa dawlado waaweyn baa ku jira walaalayaal haw qaadanina inay tahay reer inaga oo istilaya walaaliyaal waa laynagu kala qaybinaya waxa la doonayaa waxba soo bidhaamay wixii soo dhibaamay biyo lagu shubaa la doonaya markaas arrinkaasi maaha arrin gudaheena yaa lagu soo celin hebel kaahin iyo maxamuud iyo yaasiin iyo musa yaan loo aanayn arrinkaasi waa arrin dibadda ka socda inagoo gacmo ay haysana wixii laga yeelayo hal laga arrinsado waxaan mar labaad ku celinaya oo mar saddexaad ku celinaya dariiqii aynu haynay yaa leeyahay leexin reer Soomaaliland maxaynu soo dhimanayna waxaan soo dhimanayna noqono dawlad inay noqono oo gooni isku taagno ayuu soo dhimanayna waxa weeye marka waxa leeyahay arrinkaasi waa arrin dugudaabiya laynaga banjarinayo laynagu maxaa ku raad dibadda ka leeyahay dariiqii laynaga leexinayay yeynaan dhagu dhigin Puntland iyo Soomaaliya ayay naga imanaysaa war maanta waxaan ku dib ugu noqonaa ninka maxaa ku raad ninkii wuxuu sameeyay inoo ogeene ka xun inay noolaanay meel inaga daba qaylinaya doonay inaan noolaan wuxuu doonay inuu gumaysto mataasaynu yaala ee maanta inoo ogoleynayno arrisano inuu soo hor fadhiisto ayuu maanta dib ugu noqonaa war arrinka waa ka dagaalamayna waxaan leeyahay arrinka xukuumadda waxaan leeyahay arrinku maaha arrin gudaheena waa arrin dibadda Puntland waa in loo sheega haddii laynaga soo duulo ama carraad ama nin kala haade inuu asagu dhimanayo dari inuu dhimanayo Puntland u burburayso ha ayaa loo sheegay mar dambe haddii uu naga soo duulo xukuumadda waa inuu sheegtaa madaxweynuhu u sheega ninka leeyahay daniya meesha loo doortay inuu asagu dhimanayo garoo ka qaxay waxa weey arrinkaas waa arrin waxaan u haysanaa arrin naga imanaya Puntland naga imanaya oo Puntland la noo soo maray oo soo dhex marayo oo dawlado waaweyn ku jiraan ayaan u haysanaa oo kharash ku bixiyaan oo lacag ku bixiyaan warar badan baan nahaynaa xogaala waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad aan ku celinaya arrinkani maaha arrin gudaheena maxamed kaahina mas'uul kama aha hebelna mas'uul kama aha yaan arrinka gudaheena ku soo celinina waxa la doonayaa in laynagu kala qaybiyo la doonayaa inagoo midaysan maxaa ku dhahay maatideena aynu kala ceshano oo maatidana aynu gacanta arrinkana ku qabanno haddii la bedelkay arrinkuna inta uu ka qoto dheer yahay aynu maxaa ku dhahay aynu maxaa ku dhahay waajahno halka arrinku ka imanayo qorada waa la soo dhex maray ninka waa la soo dhex maraya laakiin arrinku ka sheegay waxa su'aasha aad iyo aad isu weydiina waxa kamid ah ninka argaabo ka mudaharaadaya ninka inuu soo duuliyay inaga ee la adeegsanayo ninka uu mudaharaadaya muxuu doonaya wuxuu doonaya in laynu gumaysto in xamar ku noqon doonaya oo aynu maxaa ku dhahay haddii hableena la guursan waayo ka argaabo haddii la bedel leeyahay in burco ka mudaharaadaya ee ninka carro mudaharaadaya maxaa ku dhahay ninka mudaharaadaya burco jooga wuxuu doonaya hableena la guursan waayo ay laynu gumaysto wararka oo ka dagaalamina yeelmayna carno waa la soo qabanaya ninkii madaxa dhulka ku furay oo ku dhufo ninkaas waa nin la adeegsanayo dawlado kale ayaa wato oo doonaya inay baabiyaan oo markaa runtii hadalka waa badiyay inta aanu socdo waa inta weeye Birmingham oo maxaa ku raayay laga ictiraafay iyo kilka sharaadba aad iyo aad baan u mahad celinaya aniga waxa dhacaya waxay sheegayaan wax wanaagsan waxay sheegayaan Soomaaliland inay soo muuqatay wuxuu soo socdaan dabeedna waxa lagu shubaya biyo lagu shubaya waa laynaga bajarinaya waa indications waa dabayli waxa dhacaya dabaylihii ictiraafka dhacaya wariyad waxa taariikh ba ka dambeyn doonta waa la isbirito marka la ictiraafo waxa la oranaya yaa bajarinayay nin walba muxuu ku lahaa keebaa maxaa wax taray keebaa u dhintay
وانا الاعتراف يا تن لوغنا سو دقاقي مايو سداسي اهانيس دوب لو نقون مايو حاجه قبلنا هدا حاجه ku noqona waxa la oranayaa waa nimankii meel ay tagaan garan waayay baa la oranayaa waa la doonsanaya markaas uga soo dhaqaaqay mayno arku saas oo haanaya Soomaaliland waxa leeyahay اعتراف looma waayina inaga isbaranayna inaga isku dhex maqan اعتراف waxba ma jiro hadii la bedel kale inay u midowna ayuu u baahan tahay